Wasiirka Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya Foosiye Abuukar Nuur oo maanta warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay kiisaska cusub ee xanuunka Covid-19. Foosiye oo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri waxaan rabaa inaan hoosto ka xariiqo xaaladda sidayta 24 saac ugu dambeeyay oo ku ekeyd shalay casirkii waxaa la baaray guud ahaan Soomaaliya oo dhan 1966 xaaladood waxaa positive covid noqday 280 Puntland oo ilaa isbuuc aruurisaa waxay tahay 133 Banaadir waa 96 Somaliland waa 27 Koonfur Galbeed waa 14 Jubbaland waa 177 haddii ay ka maqan yihiin maamul goboleed micnaheedu ma aha inaan la raadinin laakiin waxa laga yaabaa inaysan test sameeynin oo alaabihii loogu talagalay qaarkood ay dhamaadeen intooda badan dhimashada waxay ahayd 24 saac shalay ku ekaa casarka 8 guud ahaan inta case oo positive ah wadankeena waxa waaye 8321 dhimashaduna waxay gaartay 302 intaas waa inta aan shaybaar ku xaqiijinay isbitaal ku dhintay ama la keenay oo inta la baaray yacni guryaha ama jooga aan lagu ogyahay ama isbitaalada gaarka ah ama isbitaalada dawladda oo lagu daaweeyo nambarada aad ay u badan yihiin qiyaasta haddii qabuuraha iyo la tegay dad badan oo waxaa jira guryahooda aanan ka soo bixin oo aanan soo raadsanin kaalmo xarun caafimaad ama dhaqaatiir magaaladan aan joogna dhimashada inay badatay idinka aad iyo aad uga warqabo soo geliya tacsida iyo maaragtay aad iyo aad u badatay waa ka badan yihiin sidaan qiyaasayna aad iyo aad ay ugu badan yihiin nambarada la xaqiijiyay oo shaybaar lagu xaqiijiyay oo isbitaal soo raadsaday oo annaga aan hayno micnaheeda taas waxa waaye isu gudbiskii cudurka transmissionka aad iyo aad u koreeya weli ma xaqiijinin oo shaybaar laguma xaqiijinin variantiga isbedelay ee kiika hore ka duwanaa inuu yahay iyo in kale laakiin dhaqaatiirta iyo dadka culunta ku takhasusay shaki weyn uguma jiro inuu yahay mid cusub oo ka duwan isu gudbiskiisa iyo dhimashada nafteeda aad u badatay dadka uu soo haleelayo ma aha kaliya dadkii waaweynaa dadka yaryar ayaa hadda u dhimanayo isbitaalada aan ku aragnay waxaan rabnaa taxadarka inaan xoojinno la raaco habraacyada iyo isxakamayntii iyo dhowridda in la kala dheeraado in afka la xirto in meelaha fagaaraha dadka ku badan yihiin aan la tegin la raaca awaamiirta ka soo baxaysa dawladda iyo gobollada waxaa faahfaahin doona gobolka Banaadir wixii xakamayn amara oo la soo rogay laakiin walaalayaal waxaan leenahay cudurka aad u fidaaya dhexdeenu ku jira waa fidaaya waa inaan isugu tagnaa sidii aan u xakamayn lahayn loo yareyn lahaa waajib saaran naftaada nafteeda Xamdi Kaaba